waxaan maanta casharkeena ku bilaabanaynaa afarta xisaabfal. waxaan uga jeedaa afarta xisaabfal ee kala ah isugeynta, kala goynta, isku dhufashada oo dadka qaar laga isticmaalaan, gaar ahaan Eurotan aan ku noolnahay, qaarna ay calaamada isku talaabta u isticmaalaan, isu qaybinta oo halka Norway laba dhibcood oo isdul saaran looga isticmaalo, Yurubta badideeda waddankeena laba dhibcood iyo jiitin u dhaxaysa laga isticmaali jiray. haddii markaa afarta xisaabfal isugeynta iyo kala goynta iyo isku dhufashada iyo isu qaybintu ay xisaabta kuusoo wada galaan gudaheeda, midiguna ha ka wadinoo ku dar iyo ka jar iyo ku dhufaha odhane, waxay leeyihiin hab loo raaco xalinta xisaabta. xisaabtaas ha noqoto tirooyin caadiya, ha noqoto jajab, ha noqoto tibxaaley, ha noqoto mas'alooyin, saabley, waxay doonta ha noqoto. waxaan uga jeedaa imika xisaabtan oo kale marka aad xalinayso ma odhanaysid 3 lagu daray 5 waa 8, 8 laga jaray 4 waa 4, 4 lagu dhuftay eber waa eber, waxba way baaba'een. eber loo qaybiyey 4na waa eber, oo eber markaad wax qaybisa waa eber. sidaa ma aha micnuhu. afartan xisaabfal way kala awood weyn yihiin, ama gudaha ku jirto ama bidixda ha ahaatee ama midigta ha ahaatee. afarta xisaabfal hadday meel soo wada galaan waxaa lagu horeeyaa oo laga hor shaqeeyaa xisaabfalka la yidhaahdo isku dhufashada. isku dhufashada awoodda ugu sarreysa marka hore aad ka shaqeynaysaa, labada isku dhufashada udhexaysa ad isku dhufanaysaa. isku dhufashada talaabada ku xigtaa waxay noqonaysaa isu qaybinta. markaad labadaa isku dhufato oo wixii kasoo baxa aad kan kaa u qaybiso, ayaa dabeeto kala goynta iyo isugeynta kaa doonto ku horumaraysaa. marka xisaabta marka la xalinayo waxaan uga shaqeynaynaa sidatan. waxaanu leenahay 4 lagu dhuftay eber waa eber, eber loo qaybiyey 4na waa eber. intaasoo dhan eber bay noqonaysaa. ebertaa dhexe waxa lagu dhuftay ayaa baabi'isay. dabeeto waxaa noo soo haray 3 lagu daray 5. markaa jawaabta xisaabtani waa 8. haddii aynu dhinacan ka bilawnina eber bay noqonaysaa jawaabtu. markaa ha ku boodino oo dhan 3 loo geeyey 5 waa 8, 8 laga jaray 4 waa 4, 4 lagu dhuftay eber waa eber, eber loo qaybiyey 4na waa eber. markaa jawaabta eber ha ka dhigan, waa khalade. ku horee isku dhufashada, ku xiji isu qaybinta, kala goynta iyo isu geyntana kaa doonto ku horee. sidaa ayuu is arag dambe iyo cashirkeena soo socda oo xiiso leh.